أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم kulanti wanaagsan qaar sharafta leh waa Sayd Cabdiraxmaan oo idin leh mar kale iyo ismaqal iyo isaragti kale oo xiiso leh akhyaaray si aad ogtihiin waxaa ka bilowday bariga dhexe kadib markii ay dowladda yuhuudda oo uu hogaamiye ninka waalan ee netanyahuya uu maaragtay si gacadmaa u weeraray dalka iiraan halkaas oo maaragtay lagu xasuuqay saraakiishii ugu sarreysay militariga waddankaas iyo saynis yahano iyagana shicib ahaa oo aad u fara badan waad ogtihiin waxaasoo dhan ay ku noqon maaye ayaa uu halkaa ka bilowday dagaalka hadduu la idiin roy u dhexeeya iiraan iyo israa'iil ama yuhuudda dagaalkani si aad ogtihiin wuxuu bilowday jimcihii ma ogtihiin jimcaha gaaladu ma ogtahay hollywoodkoodii wuxuudan waa ka faashadaano bishu markay 13 tahay oo waxay u yaqaanaan maalinkii guuldarrada soo ma aragtaan waxay yidhaahdeen waa Friday the 13th marka ilaahay guuldarra horta uga dhigo guuldarra u eg tahay Netanyahu maanta waa fashilan yahay marka si aad ogtihiin madaxweynahan hadda Trump ee soo noqday mar labaad maaragtay madaxweyne 45aad buu ahaa ee ku horreeyay Joe Biden oo ahaa madaxweyne 46aad kan mar kalena wuxuu noqday madaxweynihii 47aad ee dalka Mareykanka hogaamiya marka calaamisaarkiisu wuxuu ahaa bishii 22keedii marka labadii bilood ee ugu dambeysay waxaad ogtihiin in wada hadal la yiri Iiraan ba loo qabanayay iyo Mareykanka oo ah sidii loo dhimin lahaa hubka nuclear-ka hase yeeshee akhyaari ma ogtihiin in meesha wada hadal uusan jirin ee ahayd uu hoosaasin hadduu ilaahay idiin rooy yahay iyo u qarin maaragtay loo qarinayay yuhuuddu inay mishinkaa ay doonayeen inay ku qaadaan Iiraan loo qariyo si aan aysan maaragtay Iiraaniintu fahmin marka khiyaam waa waxba kama jirin kolkaasay tahayba waa kii nimanka yuhuuddu weerareen waa kii macnaha waxaad ogtihiin uu ka dhacay meesha kolka arrintu macnaha iyagu yuhuuddu waxay leeyihiin soo maaha iyo reer galbeedku ma doonayno Iiraan inay nuclear hesho hadduu ilaahay idiin rooy yahay oo sababtan u weeraraynan waxa weeye macnaha in nuclear laga weeraro oo loo diiday Iiraan inay qaadato bal hase yeeshee maanta cilmigaan la qaybsan doono insha Allah waxaan idiin sheegi doonaa in sababta runta ay ka dambayso dagaalkaas akhyaaray dagaalkani ma aha dagaal nuclear ma aha yuhuuddu nuclear waa haysataa 400 oo bambaana lagu qiyaasay nuclear oo gantaali waxaasa gantaalo ridada dheerna way haystaan oo la yidhahdo Jericho haddii ay ku run yahay way ugu talagaleen inay maaragtay haddii dagaal dhaco ay dadka ku weeraraan qaaradda Yurub oo dhanna saad ogtihiin maaragtay madax furashay ku haystaan nuclear-ka waxay u isticmaalaan waxa la yidhahdo Samsung option oo ah waxay iyagu la baxeen Samsung waxa baa la yidhi Samsung waa qof macnaha like Samsung camal telefoonka magaca saas oo kale waxa la yidhahdaa la yidhi nin reer bani Israa'iil oo ahaa oo hadduu la ku roo yahay meeshii wax ku caabudi jireen dadkii ay la dagaalami jireen dhulka deganaa quraanka lagu sheegay sida jaaludu kale dadku hogaamin jiray ayaa uu ku jiray baa la yidhi kadib nin saas oo awood badan adigu aakhirkii waxaa la yidhi isagii macnaha saas oo kale uu isku qarxiyey iyagiina waa uu la degay kolka Soomaaliya waxaan soo saarkii la yidhaahday waxaasoo dhan iyaga ka timid fitno dhan iyaga ka timid waddankan yari waddan caadi ma aha ra'iisul wasaarihii hore ee yuhuudda ka Netanyahu ka horreeyay waqtiga gaaban xukumayay oo la oran jiray maaragtay muxuu ahaa Natalib saasaan jeclahay Natalib Baned ayaa wuxuu yidhi Samsung option kumaha keliya in nuclear-kaanu haysano haddii aanu khatar galno inaanu adduunyada u qaybino oo aanu adduunyada ku gubno maha keliya buu yidhi hase yeeshee wuxuu yidhi waxa weeye waxa la yidhaahdo maaragtay cyber security oo dhan shirkadaha iyagaas kale muxuu yahay cyber security waxa weeye dhammaan software-rada internetka ee nabadgelyada hadduu la ku rooyay anti hacking iyo waxa joojiya iOS-ka Apple-ka Microsoft Windows System Operating System Google Android waxa alla wixii software communication messaging software sida WhatsApp-ka Signal kulli waxa alla waxa isgaarsiin ee internet ku shaqale ama telefoon ama waxaasoo dhan shirkadaha Mareykanka ee la yiraahdo Silicon Valley ee iskale waxaas kale yuhuud kolka Soomaaliyeed marka cyber security waxa kaloo ilaaliya airborrada diyaaradaha waa ka kala haga tareenada adduunka dheereeya waa ka kala haga warshadaha nuclear-ka ee korontada ee reer galbeedka oo dhan iyo wadamada tiknoolajiyada leh iyaga kala haga
gaaska baybka ee carabta iyo wadamada reer galbeedka oo dhan macnaha shidaalka naaftada gaaska caadiga wax lagu karsado batroolka waxaasoo dhan baybkii waxa kala hagaya oo dhan iyagaa ilaaliya soo ma aragtaan sidoo kale dekedaha dunyada oo dhan iyaga ayaa haya bilmatalan dekedan yaman ee la dhaho db world run ahaantii deked aan dhehe imaaraadka ee db world la yiraahdo shirkad imaaraada maaha waa shirkad ingiriiskana saadogtiin yuhuud baa iskale wax alla waxa reer galbeedka oo dhan dhaqaalahooda iyo teknolojiyada iyo software iyo engineering waxaasoo dhan warshadaha nuclearka xataa wax kale iska daya waxa la yidhi koodhka maraykanka nuclearka iyaga ayaa haysta waxaan idiin sheegaya waa xaqiiq saraakiishan iiraan ee la dilay dhammaantood waxaa lagu dilay through the mobile systemka waayo androidka adduunyada waxaa telefoon jira akhyaaray qolofta kama hadlayno qolofta telefoonka sida samsung hadduu la kuro nokia waxaasoo dhan waad samaysan kartaa qolof laakiin waxaa laisku haystaa operating systemka hadduu ilahay kuu roon yahay waxaan wada ee ka shaqaysiinaya operatingkaas akhyaaray laba shirkad ayaa adduunyada haysata midi waa apple oo iyagu qoloftiina way samaystaan wixii qolof systemka waday ee la yidhaahdo iosna iyagaas kale dhammaantoodna israa'iil bay xarun ku leeyihiin dhammaantoodna shirkada yuhuudaas kale shirkada yuhuudda ee black rag la yidhaahdo ayaa waxaan oo dhan iyo investorka oo iskale soo waxa garateen maaha shakhsiyaadkan waa ku magacaaban yihiin microsoft windows bilgeed waa ku magacaaban yahay sheerka ugu weyn waxaa le black ragna hadduu ilaa idiin roo yahay waxaa iskale bangiga maraykanka dhexe ee la yidhaahdo federal reserve bangiga federal reserve ama kaydka dhexe ee maraykankana waa private bank qoyska yuhuudda la yidhahdo roger ayaa iskale soo dadkan qur-aanka ya alla subxana watacala wuxuu ku sheegay cayd hase yeeshee waa taajiriin soo ma ah okay sababta ilaahay subxana watacala cayd ugu sheegay waxa weye waayo dhul ma laha iyagu dhul ay beeran karaan dhul ay leeyihin ma lahan falastiin meel kastoo lagu haystaa kolka wax alla waxay hanti haystaan oo dhan waa waxay dhaceen ama bilqaysteen ama xaaraan iyo tuugni u qaadeen ama ay madax dileen kolka dhammaan maaragtay waxa telefoon jira hadduu apple yahayn dee apple system ios baa iskale haddii uu shirkadaha kale oo dhan yahayn akhyaaray waa smartphone-kan ka hadlaya waxaa iskale google android baa operate sameeya hadda saad ogtihiin waktigii hore ee trump afartiisii hore waa kii shiinaha iyo isagu isdagaaleen waa kii google ay systemka shiinaha xanibeen shiinuhu hadda system yaroo daciif ay samaysteen oo hadduu la ku roon yahay saas oo kale laakiin weli meel ma gaarin laakiin telecommunication iyagaa le marka nimanka yuhuuddu marka nimanka saraakiisha ee iiraan ay dileen waxay u isticmaaleen artificial intelligence ayay u isticmaaleen oo aad iyo aad u fara badan sida hadda kan hortiina yaalo oo kale oo hadduu la ku roon yahay ka ugu khatarsana maaragtay oo la dhaho balantiir waxay kaloo isticmaaleen system kaloo iyagana database iyo hadduu la ku roon yahay cyber security waxaasa oo la yidhaahdo lavender waa system ay u samaysteen falastiiniyiinta iyo xamaas waayo bilmatalan caasho markii xuseen wacdo xuseenna caasho waco maaragtay xuseenna saaxiib kaloo jaamac leeyahay jaamacna leeyahay calina ka leeyahay waxay ogyihiin dhammaantood dadka adduunyada isku xiriirsan oo dhan telefoonkuna sidaad ogtiin location service buu leeyahay marka smartphone-kaagii marka la hagareeyo waxaa la ogaanaya locationkaad joogtay waana sababta nimankaa u dileen iiraanna waxay arrintaa u ogaan waayeen waa waddan weyn ma naqaan malaha way ugu talagaleen marka say tahayba systemkaasay isticmaaleen waxaas nimankan samsung ocean waxay ugu talagaleen in haddii la kuruuyo ay khatar galaan in adduunyada la degaan soo maa okay arrintaa waxaa inoo xaqiijiyey qur-aanka casharkii hore idiin sheegay ee suurat al-isra markaan fasiriyay waxaa idiin sheegay in ilaahay yidhi subxaana watacaala bariga dhexe fain cudtum cudnaa alla wuxuu subxana wataala haddaad bariga dhexe kusoo noqotaan waddankii hore annana waan kusoo noqonaynaa marka hadda way soo noqdeen qasb wixii bayna bilaabeen allana wuxuu yidhi subxaana watacaala culuwan kabiir ayaad la iman doontaan marka labaad marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala faidaa jaa wacdu alaakhirati ji'naakum lafiifa alla wuxuu yidhi subxana wataala markuu yimaado yabooha dambe waa hadda 917 bilowday alla wuxuu subxaana watacaala ji'naakum lafiifa idinkoo laflafa yani reer bani israa'iil idin soo celin doonaa waana la soo celiyey macaliyagii iyo kaysaarkii iyo yerubiyankii iyo wixii ay hadduu la ku run yahay ummadihii hore ay dhex galeen oo dhan wixii oo dhan waa la keenay marka hadda wacdigii labaad baa bilowday alla wuxuu subxaana watacaala aayadda macnaha suuradda bilowgeeda waxaa la yidhi 2 jeer ayaad dhulka fasaadin doontaan oo la iman doontaan isla weyni weyn haddana way wadaan tii labaad bay wadaan waxaasuna casharada horaa uga sheekeeyey kolka ilaahay subxana watacaala inoo sheegay inay waalan doonaan oo samsung optionka markay adduunyadu isticmaalaan hadda waxaad noo ogaataa adduunyada 7 bilyan ku dhowaad ama 6 bilyan intaas kala nus cirbadda covid 19 ku dili doonaan wax shakiya iyada cirbadda qofka ku xiran xataa waxaa la sheegay in bluetooth ku jiro dad badan bay u isticmaalaan waa cilmi kaloo yaab la isagana mar kalaan idin sharxi doonaa kolka nimankaa saraakiisha telefoonkii ku dileen waayo track system ay ku sameeyeen
dhammaan kambaniyada artificial intelligence-ga ee galbeedka oo dhan nimanka yuhuuddaas kale kolka say tahay ba arrinta saasay u dhacday markii saa u dhacday marka haddaan ku noqdo toobigayga bilowga ah ee ahaa macnaha hadduu ilaahay idin rooya akhyaaray waa maxay sababta runta ee iiraan u weerareen sababta runta iiraan u weerareen nuclear maaha waayo iiraan way sheegtay inaysan nuclear haysan haddee waqtigan hadda maalinkan maanta aan hadlayno hadday nuclear samaysan waayaanba waaba stupidba waayo waa u dhammaatay kuwa labaad ee loo socdana waa Pakistan waana sababta ay Pakistan fariimo u dirtay yuhuudda ay yidhaahdeen haddaad iiraan nuclear ku dhufataan annaguna waad ku dhufan doonaa kolka hadda cabsi baa halkaa dhigtay marka sababta runta ah ee iiraan hadduu ilaahay idin roo yahay ay u weerareen macnaha nuclearku ay ku qorxso waxa weeyaan ma doonayaan carabta ay gumaystaan yuhuuddu ee ay qabsadeen iyo hanjabaadda yurubiyaanka ay ku hayaan iyo waxaasoo dhan bariga dhexe iyo galbeedka qaaradda Asia in wax la jaalanjilgareeya haba yaraatee ma doonayaan Israa'iil waxay go'aansatay awaad haddaa marka ilaahay baalay waxa jiran baan idiin sheegaya macnaha waanad ka aragtaan haddii macnaha adduunyada kama dhicin boqolkii sane ku dhowaad lasoo dhaafay in shacab meel degan la iska xasuuqo waxa hadda Falastiin lagu sameeyey oon cidina ka hadal adduunyada kamay dhicin nimankana waad aragtaa they operate with macnaha with impunity macnaha waxay rabaan yay samayn say rabaan bay hadduu ilaahay kuuri dadku wax suuqa cid ka hadlaysana ma laha ninkan Netanyahu aad ogtiin waa argagixiso weyn ninkan commandoska walaalkii baa ahaan jiray markii Falastiiniinta 75 dhowr 70 ay diyaaradii Israa'iil lahayd aftuubeen ee Uganda geeyeen walaalkii oo commandos lagu dilay ilaa maalinka ninkani xasuuqa muslimka ayuu ku jiray qaafar sano ka hor buug buu qoray la yiraahdo waxa la dagaalamayna muslim terrorist marka ninkani ururadan sida alqaacida oo kale waxaasoo dhan waxa lagu ISIS kulli lagu kuleeyahay samayntooda ururadaasna waxaad ogaataa macnaha muslimnimo dagaalamaan marka run idin sheego bilmeetil hadda Suuriya oo kale waxa in asad loo riday isaga naftigiisa daalimka loo hayo ogaada dadku waxa suuq jiray waxa loo riday waxa la doonayay jid la maro oo loo maro waa marka waxa kadib maabka tusi doonay kolka waxa weeye sababta Iiraan loo weeraray waxa weeye Iiraan farbay taagatay waxay tiri yeelimayn adoonsiga carab ku hayso waad ogtahay 2 toddobaad ka hor Trump Sacuudigu yimid 600 bilyan oo baad uu ka qaaday sidoo kale wadanka Qatar diyaarad iyagana baada ayuu ka qaaday oo diyaarad jeeday siiyeen oo 400 oo milyan soo ma aragtaan carabta caadi baa loo baadaa marka Israa'iil iyo Yuhuud ma doonayaan wax bariga dhexe kula murmo oo farta taagay dhulkaas oo dhan dhammaan waxaan idin sheegay hadda ka hor barnaamijka la yiraahdo maxaa dan ogeyn oo laga qariyay in jeneraal Mareykanka oo la yiraahdo jeneraal Wesley Clark uu sanadkii 2001 Pentagon-ka booqday bishii labadii sarood ay isla Israa'iil iyo CID Mareykanku soo rideen kadib intuu booqday la uu yiri ma Afghanistan baan weerarayna oo lagu yiri ma hadda way ka tanantay 7 waddan baan weerarayna waxa la yiri waxa laga bilaabayaa hadduu la ku roon yahay maaragtay Iraq Soomaaliya Suudaan Suuriya Liibiya hadduu la roon yahay waxaana lagu soo afjari doonaa baa la yiri Iiraan soo ma aragtaan lixda hore waa albaabiyey fiiri in asad saad ogtiin bilo ka hor baa yaa loo dhamaystiray oo nimankan la keenay jabhatu nusra la yidhaahdo oo basically Erdogan iyo Netanyahu kala shaqeeya Suuriya waxaa lagu talagalay in la kala qaybsado qaybna Erdogan baa qaadanaya qaybna Netanyahu waana Erdogan dadka madaxa u ruxamay Soomaalidan tacliinta lahayn baa ninka u haysan nin wanaagsan ninkaasi waa ninka muslimiinta baabiyey sida Liibiya waxaas oo dhan dadka Soomaalidu ma ogtahay dad siyaasiyiin ma lihiin siyaasiyiinteena waa dadka ugu xun adduunyada oo caqli naaqusa heerkasay joogaan hadday yihiin ismaamuladaas iyo hadday yihiin waddan kale jamhuuriyaddaaba kolka waxaa ninka jarnaalka wuxuu sheegay videoga internet ku jira aniguna waan ka sheekeeyey waxaanan ogeyn baa la yidhahdaa ma qaybta afraad baan wax saasaan uga qaaday marka Iiraan baa hadda waa ka dagaalka loo socdo dagaalkana waa dagaal reer galbeeda oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo ay ka dambeeyaan iyo Faransiisku Israa'iilna way isticmaalayaan laakiin hase yeeshee ruuxaantii dagaal reer galbeedku wadaan maaha reer galbeedka waxaa xukuma oo dhex degan boqortooyada yuhuudda oo ah systemkii dajaal ka horreeyey saan idin sheegana lacagta dollarka iyo euro iyaga leh qoysaskan yuhuudda maaragtay zaaniista la yiraahdo oo Israa'iil saldhigooda yahay moogtay waddanka Israa'iil waddan maaragtay caadiya ma aha oo waddanka kaliya adduunyada lahayn akhyaaray xuduud sharciyeysan ma laha boqolkiiba 85 waddanka waxa iska leh qoyska Rothschild la yiraahdo ee dollarka Mareykanka leh Ingiriiska iyo Faransiiska saldhigoodu yahay iyo Mareykanka kolka Iiraan baa lagu soo afjaray baa la yidhi waarkan maanta marka maxaa dhacay marka Iiraan waxaa loo weeraray marka si ayna far u taagin oo aysan isku xoreyn oo hadduu la kuuron yahay waddan muslina oo nuclear quwada haysta aan loo ogolaan hadda iyagina waa isdaafaceen waad aragteen kan taalo ayay samaysteen hadduu la idin roo yahay oo hypersonic ah
fiiri systemkan soniga la dhaho marka koowaad waa supersonic maaragtay ultrasonic hypersonic saas oo kale ah marka yuhuud iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay iyo dalka Israa'iil iyo Iiraan waxay isku jiraan ilaa 2,300 oo kilomitir maylka marka loo bedelo adu ilaa 1,400 oo kilomitir iyo googaado 1,500 ku dhawaad waddanka Iiraan waa waddan weyn waayo Yurub oo Azerbaijan ah iyo hadduu ilaahay idiin roon yahay wuxuu isku xiraa qaaradda Asia oo Pakistan ah marka gantaalada ay samaysteen sida hadda gantaalkan laga cabaaday aan dhehe 24 saac la soo dhaafay yuhuudda eber ka dhigay baabiye dhulka dhigay waa gantaalka hadduu ilaahay kuu roon loogu magac daray ninkii ay dileen ee la oran jiray jenaraal qaasim suleymaani oo xaaji qaasim suleymaani ay yidhaahdaan kolka waa hypersonic wey waa ma qabto systemka yuhuudda samaystay ee difaaca hawada ma qabto marka waxay ugu talagaleen maaragta hadduu ilaahay roo yahay inay dhulka dhigaan sidaad ogtahay haamihii shidaalka iyo warshadii sifaynta shidaalka ee Haifa waad ogtahay gebigeeda waa la burburiyey howlgab baana laga dhigay wayna qarinayaan macnaha dee soomaaliduna hore uga mamado waxaa la yidhi gaalo jabkooda way qarsataa yuhuudda dhaawac weyn baa gaaray magaalooyinkoodii waxooda dhan waa la baabiiyey khasaaraan ku dhicin baa gaaray nuclear blackmailka ama shirqoolka ay Yurub ku sameeyaanna matalan 1973 marka masaaridu Suez Canal ay tallaabeen oo u socdeen inay xagga yuhuudda qabsadaan maraykanka ilaa hadlan yuhuudi waxay yidhahdeen nuclear baan tuuraynaa qaahire dhulkaan dhiganaa waan gubaynaa maraykanku saas usoo fargashtay marka haddii hadda ay kaasoo saasoo kale yidhaahdaan oo yidhahdaan Iiraan nuclear baan dhulka dhiganaa waa kii maalmo dhow lahaayeen Iiraan waa baaran Pakistan oo og inay ku xigaan Iiraan marka laga takhaluso iyagana way ku xigaan ayaa waxay yidhaahdeen haddaad nuclear ku dhufataan annaguna hadduu ilaahay idiin roon yahay waan idinku dhufan doonaa marka yuhuuddu waa cabsadeen waxaadna ogaataa saan casharadooda uga sheekeeyey yuhuuddu hadda waxay wadaan macnaha waa suicide mission waxay u talagaleen 9 milyan ee waddanka ku nool 6 milyan waxay yihiinba in lagu gubo oo meesha lagu dhameeyo sidii ay yuhuudi dagaalka labaadba Hitler ay maaragtay sacrifice ku sameeyeen si ay state-koodan dilaaga u helaan eriga holocaust macnaheedu waxa weeye waa offering waa waxaan inagu niraahno maaragtay uloogid weeye oo saasoo kale waxaas waa loo loogay Soomaaliga sooma taqaanaan sidoo kale carabiga iyo diinka waa eriga la yidhahdo qurbaan marka dadkoodiiba saa haddana tanay wadaan tanna waxay doonayeen inay yidhahdaan muslimka 6 milyan dilay oo hadduu ilaahay kuu roon yahay muslim dambe ma jiro kolkaasay tahayba Iiraan waa ka harsatay waa iska celisay dagahey ku dhufatay Iiraanna sacrifice weyn bay sameeyeen waad ogtiin dowladdoodii saraakiishoodii eber baa laga dhigay marka ruushkii shiinaha lama yaqaan inay kusoo biiri Putin waxaad ogaataa hooyadii waa yuhuud sheekh xuseen baan isku yara khilaafnay arrinta iyada waa sheekhaygii qoraalkan baan sheekh xuseen u qoray hortiina yaalla sheekhuna waxa uu yiri waa ku jawaabay wuxuu yiri tan aday kugu kooban tahay cid ku dhegeysanaysa ma lahan qofna kuguma raaxsana sheekha culimada waan ixtiraamaa laakiin anigu kuma raaxsani Putin inuu yahay nin wanaagsan oo muslimka la shaqeeya Putin waa double face hadduu la kuuray galbeedka hoostuu kala shaqeeya iyo waxaan oo dhan waana dagaalka Ukraine ninka ugu talagalay waxaadna ogaataa maadaama cirbadii ay dad badan dilayso adduunyada waxaa loo baahan yahay dagaalo badan inay ridaan waxaana lagu soo dhamayn doonaa 2030 sida iyagu qorayaan nuclear war si tirada dadka loo dhamaystiro iyo dhibaatadii ka dhacday suuqa cirbadiina halkaa ku dhamaato markaan ma aqaan inuu yahay dagaalka nebiga sallallahu alayhi wasallam uu ku sheegay inuu yahay malxama gaaladuna ay u yaqaanaan Armageddon ee ahaa kii haddii la guurooyin yahay dajaal lagu soo bixi doono nebi ciisana ku soo degi doono marka say tahay adduunyadii waa khatar akhyaaray intaan ka bixin waxaan rabaa waxyar inaan tuso maabkan baan doonayaa inaan tuso ood ila barataan maaragtay sida carabtu hadduu ilaahay idiin roo yahay ay qaayimiin u yihiin akhyaaray halkani saad ka aragtaan hortiina yaalla waa waddanka Iiraan weeye waxaad aragtaan macnaha halkan waa Iiraan ma ogtahay waddanka Iiraan warshadaha nuclearka iyo xeryaha militariga oo dhan waxay ku yaalaan waqooyi bari qandhe ee waqooyi galbeed ee Iiraan waayo markay waxaan samaynayeen 20 sano ka hor barigooda halkan oo Afghanistan ah waxay haystay Mareykanka halkan waa Pakistan kan waa Turkmenistan halkan waxa weeye badda Caspian Sea halkan waa Azerbaijan oo iyagu ah dowladda koowaad ee Israa'iil saaxiibka la muslimka ogaada 90% waa Shiico kuwan waa Turki Soomaaliyaan maaragtay halkan yar Armenia ku jirta dhexdooda halkan yar meel yar halkana kan waa Suuriya kan waa Ciraaq kan waa Sacuudiga
hadduu ilaahay idin roon yahay halkan yari waa Kuwait, kani waxa weeye waa Qatar, meeshaan yari iyadana waxa weeyaan waa Cumaan, aan dhehe Baxrayn, kani waa Imaaraadka, gacankan meeshan Hormuus la yidhaahdo laga yaabo in lagu dagaalamo, nimanka la yidhaahdo dowladda la yidhaahdo Cumaan ayaa kora, Imaaraadkuna waa kan. Marka wadankii yaraa macnaha nimankii yuhuudda waa kan saadka aragtaan khiyaaray, waxayna soo dhaweeyeen. Kolka diyaaradaha yuhuuddu markay halkan ka soo kacaan Israa'iila waxay haystaan laba jid inay Jordan soo maraan, Jordan bay soo maraan, kadibna galbeedka Ciraaq bay soo socdaan. Laakiin maadaama galbeedka Ciraaq dhulkan weeye uu saxare yahay isla markaana uu weyn yahay, waa la arki karaa. Sidaa darteed waxaad halkan ka aragtaan Suuriya soo maa, halkan waa yuhuudda ogaada, halkana waa Lubnaan. Marka sabab ka mid a sababihii xaafid Asad oo isaguna keligii taliye ahaa xukunka looga qaaday akhyar waxay tahay in hadduu ilaahay idiin roon yahay in maaragtay la helo meel loo maro yuhuudda. soo waxa garateen ma aha, waan idin tusi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. meel waxaa la doonayey loo maro iyaga macnaha Iiraan loo maro. Kolka Suuriya markii la tuuray isla markiiba yuhuuddu waxay yeeshay difaacyadii cirka ee gantaaladii Soviyetkii hore oo ahaa S-200 iyo S-300 ruushka siiyey, wax alla wixii hubay ruushka siiyey waa la gubay. Putin inuu khaa'in yahay waxaan idiin sheegayaa, Suuriya oo iyaga Soviyetkii ilaa maaragtay hadduu ilaahay idiin roon yahay 60 sano saaxiib la ahayd, waxaa loo loogay Israa'iil. soo ma aragtaan, kadibna Mediterranean-ka halkan tartaar dekedii ay fadhiyeen ruushku way ka baxeen, kadibna saasaa u saamaxday yuhuuddu inay diyaaradooda halkan la soo maraan, Suuriya soo maraan, waqooyiga halkan Ciraaq ka soo galaan, meeshan Kurdistaan la yidhaahdo, dadkan Kurdiska la yidhaho oo Ingiriisku abuus gareeyo ku xadgudbay, oo haddana maaragtay iska daba dhilif yuhuudda haysato, ciidamada Maraykankuna waqooyiga Suuriya joogaan. meeshii diyaaradaha yuhuuddu ay marayeen fiir dagaalkan waxaan tusayaa 20 sano ka hor iyo ku dhowaad baa la qorsheeyey. dhulkan ay diyaaradaha yuhuuddu soo kormarayaan oo dhan waa waqooyiga Ciraaq ilaa Kurdiska ilaa ay ka gelayaan waqooyi galbeed ee Iiraan, Maraykanka ayaa jooga. kolka Iiraan aan dhehe Ciraaq iyo Suuriya waxa weeye hawadoodii Maraykan baa haysta, Maraykanna wuxuu halkaa u joogay inuu u celiyo Israa'iil si ay u weerarto Iiraan. waxaan oo dhan soo ma aragtaan, Maraykanku ma joogo koonfurta Ciraaq oo xaggan Basri iyo xaggan Shaatil Carab iyo xaggana, wuxuu joogaa waqooyiga Ciraaq, labada rijin ee Kurdistaan iyo dhulkan kale ee Kurdiska Suuriya ee waqooyi bari Suuriya iyo ama waqooyi galbeed Ciraaqa, isla markaana waqooyi galbeed halkana. Iiraanna cabsi ay ka cabsanayso Maraykanka oo joogay, NATO oo joogay Afghanistan bariga ayay halkan ka dhisteen. Marka diyaaradaha yuhuuddu way ka soo kacaan, Jordan bay soo kormaraan oo saad ogtihiin kan boqorkii Cabdalle haysta, hooyadii waa yuhuudi Ingiriiska, dhaqanka iyo xeerka yuhuuddana ninka hooyadii yuhuud tahay waa yuhuud isaguna. soo ma aragtaan khiyaaray. kolka lama yaqaan xataa Sacuudiga in la shaqaynayaan. marka diyaaradii halkan ay soo maraan, Suuriyana waxaa loo riday, Suuriya iyo Xisbullah waxay ahaayeen difaaca koowaad ee Iiraan, markii iyaga laga takhalusay oo la keenay nimankan loo bixiyey mujaahidiinta muslimka. wax mujaahida muslim ma jiro, waxaan oon Israa'iil bay u shaqeeyaan. waan idin tusayaa maabkan halkaa markii la keenay, waa kan hadda Israa'iil si xora ayay Iiraan u weerartay, cid hor joojinaysa ma lahan. waqooyiga Ciraaq saan idiin sheegay iyo guud ahaan waddanka Ciraaq iyo Suuriyana waxaa haysta ciidamada cirka ee Maraykanka jooga, iyagaana soo gelbiya diyaarada yuhuudda markay Suuriya hawadeeda joogaan ama hawada Ciraaq soo galaanna maaragtay hawada iyagaa shidaalka ugu shuba. soo ma aragtaan, kolka waxaan oo dhan waa Maraykanka. xataa dagaalka intuuna dhicin khamiistii jimcihii ka horreysay khamiistii saad ogtihiin diyaaradda Hindiya la soo riday oo Boeing ah, diyaaraddaas waa la haagareeyey, dhulkaa la soo dhigay. arrintana Iiraan baa la hurdo la seexinay, si fiican baa loo socday Iiraan, waa la khiyaamay heshiiskii wadahadalkii wixii. waxaa dhacday marka maalinka diyaaradda Boeing la ridayo, diyaaradda Maraykanka ayaa golfa halkan socotay oo hadduu ilaahay idiin roo yahay kormaraysay hawada, waa kan sawirkeeda hor yaallo, iyadaa kormaraysay. waxaa meelihii difaaca oo dhan ee Iiraan ayaa ay sawireen oo nimanka yuhuudda loo gudbiyey. sidoo kale ma ogtihiin Iiraan markay gantaalka ka soo turto waddankooda, raadeerada ay leeyihiin Baxrayn iyo Kuwait iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaan oo dhan Israa'iil bay signalka u diraan, iyo waxay yidhahdeen hubbay soo tuureen, ogaada waa wada jaajuus. carab oo dhan waa jaajuus iyo dad la haysto. akheere soo ma aragtaan, kolka nimanku halkan ay soo maraan waqooyiga Suuriya, halkan waqooyiga Ciraaq u yimaadaan oo Kirkuk iyo dhulkan ilaa Kurdiskaaga Kurdistaan Ciraaqa, Irbil meesha la yidhaahdo, halkaasay ka galaan. waana kuwan meelihii nuclearka Iiraan sida Araag, Natanis iyo Fordow waa warshad nuclearka oo hadduu ilaahay idinku rooyay dhulkooda ku taalla oo ilaa ugu yaraan nus kilomitir ay dhulka geliyeen buuraha waqooyiga Iiraana. wayna ogyihiin in hadduu ilaahay idiin roon yahay in loo socdo
way ogaayeen sidoo kale warshadda nuclearka Bushehr koonfur galbeed Iiraan ku taala ayay weerareen dhulkaasoo dhan bay weerareen kolka dhammaan kolka dhammaan waxa weeye akhyaaray rabta maaragtay Iiraan la deriska oo dhan dhammaantood Israa'iil bay u shaqeeyaan waxaana jaajuusi caadiga imaaraadkana waad ogtiin wuxuu geeska Afrika ku sameeyo Suudaan buu baabi'iyey Soomaaliya uu kala qaybiyey oo hadduu ay ku reeyay qabaqlayaasha dagaalka lacagta isagaa siiya si aan loo degin marka waxaan hadda aragnaa wixii jabhadihii loo samayn jiray Suuriya iyo Ciraaq ee ISIS iyo Daacish la oran jiray ujeedada laga lahaa waxay ahayd inay marka hore dowladihii iyo ciidankii dhulkaa ka jiray baabi'iyaan kadibna ay boos celis u noqdaan inay yuhuuddu ciidankeedu soo galo oo hadduu lahayd rooya Iiraan laga weeraro waxaan oo dhan waa Iiraan Bakistaanna way ku xigtaa waad arki doontaan waana sababta Bakistaan hadda ay isku arkeen oo ra'iisul wasaarahoodu u hadlay uu yidhi haddaynan maanta taageerin Iiraan waddan walba muslim waa saas kolka waxaad ogaataan carab oo dhan waa jaajuus waa jaajuuska Israa'iil lacag baada laga qaadaa laakiin nimanka keliya ee diiday inay jaajuus noqdaan ee isdaafacay waa nimanka Iiraan arrintuna maaragtay hadduu lahayd rooya waa wax dagaalka keenay hadday gantaaladaas maaragtay hypersonicana waa haystaan oo hadduu lahayd rooya saan idiin sheegay macnaha halkii gantaal kilomitr marka la yidhaahdo 300 kilomitr ayaa wuxuu socdaa 1 daqiiqo soo wax dheereeya ma aha waayo dhul ilaa iyo 2200 kilomitr ayuu ku imaanayaa in ka yar 10 daqiiqo marka waa lagu qaybi adugu 2200 10 marka loo qaybi waa 220 soo ma aragtaan intaasuu socdaa haddii ay ku yahay daqiiqadii waa waxa weeye macnaha hypersonic waa hubaan la celin karin marka xagga technicadana macnaha two stage baa la yidhaahdaa stageka koowaad markuu spaceka galo qaybtii dambe motoorka labaad buu tuuraya motoor labaad baa imaanaya waa re-entry vehicle buu samaynayaa bahalkii isagoo sidii kubadda saa isku laalaadinaya iyo hawada kasoo gelaya waana sababta gantaaladii maraykanku siiyey ee taad la dhaho maaragtay meel dheer taarget dheer wax ka qabta ama kuwa iyagu samaysteen Iron Dome waxa dhan waa Mareykanka ee magacadun bay u bedeshaanay ama diyaaradahoodii F-35I la yiraahdo ay waa Israa'iil waa diyaarada customize loo sameeyey iyaga kaliya loo sameeyey nimankan waa nijaas hase yeeshee guulaysan maayaan ilaahayna quraan subxaanahu wa tacaala quraanka aayadda quraan ku sheegay acuudu billahi minash shaytaanir rajiim ina allaha laa yuslihu camala almufsidiin allah wuxuu subxaanahu wa tacaala ilaahay ma wanaajiyo camalka mufsidiinta marka si kastoo Israa'iil ay u sameeyeen si kastoo khiyaamo u ciyaaraan si kastoo dahab iyo lacag iyo shidaal ay u dhacaan ay dad u dilaan aakhirka camalkoodu waa kii baabaa ilaahayna aayad kale quraana iyo subxaanahu wa tacaala ku yiri wamaa kaydil kaafiriina ilaa fi dalaal dagarta iyo khiyaamada iyo waxay wadaan gaaladu aakhirka wuxuu ku dhamaadaa baaba kolka baabi hadda waan aragnaa waa loo jawaabay Kiinaha lama yaqaan inuu taageerayo Ruuskana lama yaqaan inuu maaragtay Iiraan taageeri doono inkastoo waqooyiga Kuuriya ay sheegeen inay iyagu taageerayaan waxaad na ogaataa adduunyada waddan safe ama nabadgelyo ma jiro ilaa akhyaaray ilaa maaragtay akhyaaray sida waqooyiga Kuuriya oo kale nuclear ku dhawaaqaan ilaa gantaaladaadu aad haysato ICBM intercontinental ballistic missile ilaa aad haysato oo gantaaladu qaara iskaga gudbaan waxaad ogaataa dalkaagu safe maaha dalka Iiraan haddayna nuclear samaysan gantaalaha dhaadheer ee Yurub iyo waqooyiga Ameerika gaadhin ayna samaysan waa doqomo sidii Ciraaq iyo waxaan carabtan la yeelay ayaana la yeeli doonaa kolka yuhuudi macnaha way waalatay waxani waa dagaalkii dajaal waa bilowgii hore way waasheen adduunyadii wax noo horsaagi kara ma lehan yiraahdeen hadda fiiri Israa'iilna saad ogtiin 10 maalin ka badan dagaal moodi karaan wuxuudoo dhan waa khiyaamo iyo jambal iyo xisdaba marin fiiri ciidamadoodu waad ogtihiin jabhad yar oo Xamaas la yiraahdo ayay ka guuleysan lahayn 2 sano soo moogid oo markay tagaanba dagaal lagu soo dhuftaa marka khiyaamadii iyo shaydaankii iyo assassinationkii waa waxay the best u sameeyaan waxay ugu fiican yihiin inay hoosta wax ka dilaan dilkaana waxaan idin sheegay macnaha AI artificial intelligence oo mobile cell phone-ka iyo waxaas oo dhan ayaa maaragtay u saamaxaya inay waxan sameeyaan oo teknolojiyadii baa muslimka laga habaaray muslimku technology ma yaqaan kolkasay tahayba anu waxaan rumaysanahay Mareykanku inuu soo geli doono 75% waayo Mareykanka nimanka Zionist aldo ayaa kontroola hadda waad aragtay nimankii Republicanka oo dhan iyo senataradii waxaas oo dhan oo dhammaantood blackmail laga wada hayo sida kale la dhaho Lindsey Graham haddii la kuura lagu sheego wuxuu xumaa inuu yahay qoomuludu inuu yahay iyaga dhan waa saas waa wax nijaasa waa wax blackmail lagu sameeyey ama waa la gatay oo lacag baa la siiyey Trump sidiisana waxaad ogtiin akhyaaray in hadda ninkii saaxiibkii ahaa Elon Musk la dhaho maaragtay company-gan X iskale social media-da iyo company-ga kale Tesla in markay Trump isdagaaleen uu yiri Trump waxa uu sii deyn waayay faylalkii ninkii la oran jiray Jeffrey Epstein waxa weeyaan Trump ayaa ku jira
jeffrey epstein waa ninkii liya xabsigiisu dilay ismuu dilin xeebaha israa'iil ayuu dhex jiifay ninkaasi Mossad operation buu ahaa sirdoonka Israa'iil buu waday madaxda galbeedka oo dhan ayaa uu haddii la ku roon yahay iyagoo carruur gabdho yar oo carruur fara xumeynaya iyo wixii kala day haddiina dilin ama wax ka xun samaynba ayuu video ka duubi jiray dhammaantood balaag meel baa lagu sameeyey sire waaweyn baa laga hayaa Trumpna waa lambar one Soomaaliya hadda Trump inuu Netanyahu ka baqayo hadal kuma soo celin karo waa inuu maaragtay maslaxo uu yiraahdo haddii la ku roon yahay shaqo fiican buu qabtay saas u weeraray kadib markii shacabka Amerikaan ku kacaana waa inuu dhinaca kale iska rogo marka yuhuud caan waxay ku yihiin inay balaag meel ku sameeyaan haddii ilaahay ku roon yahay nimanka madaxda ah waxaan oo dhan xiniyaha la wada haystaa waa dad sira laga wada hayo Trump naftigiisa hadda waa yuhuudi saadugtiin casharada hore aan uga sheekeeyey carruurtiisa oo dhan wiil iyo gabadhba ama gabdho yuhuud ay qabaan ama wiilal yuhuud ay carruurtooda qaba haddee aabihiina aabihooydina waxay ku aasiin qabuura yuhuuda New York marka waqtigii nimankan baan joognaa ilaahayna ayad quraan subxaana wa tacaala ayuu suuratul ancaam ku sheegay in ummad markay qoodo ay diidaan xaqii lacag iyo maal iyo hanti wax walba loo furo kadibna alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa akhadnaahum baktatan sikadiisa ayaa loo qabtaa kadibna alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa idaa hum mublisuun kadibna markiina iyaguna shanla iyo oohin bay bilaabaan hadda soo maaragtan yuhuudda wax ka dhacay kadibna wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala saasaa loo baabi'iyaa gebigood waa la baabi'iya marka nimanka yuhuudda waqtigoodii baa yimid ani sheekigama jiro aayaadka ilaahay iyo xadiiska nebiga sal lla alay slam in hayo u malayn maayo adduunyadu inay cadaalad daradan iyo xasuuqan dadka lagu hayo ay kusii jiri karto 40 sano hadda iyaga naftigooda alaba macnaha 2030ka dadka populationka adduunyada waa inaan ka dhigna 30%. Kolka khiyaaraysay tahayba dagaalkani dagaal sahlan maaha haddaad meelaha galbeedka joogto waxaan kugula talin lahaa had iyo jeer inaad hal bil raashinkeedii haysato saas oo kala haddaad carruurtaada ka iyo ilmayra ka kaxayn karta galbeedkana ka kaxe ilaahayna tala saaro inagu muslimaana geerida kama orodno geeridu qofka muslimka nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa hadiyadii ugu weyn uu helo laakiin waa inaad tukato ilaahay u toobad keento alla ka cabsato waqti xun baa lagu jiraa khiyaare intaan kulmi doono waa sayid cabdiraxmaan sheekh xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh